guddiga amniga ee baarlamaanka Puntland oo shirkan jaraa'id ku qabtay magaalada Garowe waxay diiradda ku saareen taageerada qaraarka ay qaadatay xukuumadda Puntland ee ku aadan dagaalka dhinaca Somaliland iyadoo Somaliland dhawaan ay qabsatay deegaanka Tukarraq ee xaruntii ku meel gaarka ahayd ee gobolka Sool halkaas oo wali gacanta ay ku hayso gudoomiyaha guddiga amniga ee baarlamaanka Puntland xildhibaan Saadiq Abshir Garaad oo shirka jaraa'id ka hadlaya ku dhawaaqay dagaal cusub oo Somaliland looga xoreynayo taakas kasta oo ay kaga sugan tahay gobolka Sool wuxuuna sheegay in xuduudda Puntland ay ku egtahay deegaanka lagu magacaabo labida gaatamo oo ah suudinta u dhaxaysa gobolada Sool iyo Togdheer taas oo masaafo ahaan aad uga durugsan deegaanka Tukarraq anigu magacay waxa weeyaan Saadiq Abshir Garaad gudoomiyaha guddiga amniga ee baarlamaanka Puntland waxaan rabaa inaan ka xaaladan colaadeed caadada u ah maamulka Somaliland weerarada gardarrada ah ee awalba dhaqanka u ahaan jirtay ee ku soo qaadi jiray gobolada Puntland qaybta Sool Sanaag iyo Bohole khaasatan u caadeystay xisbiga hadda talada Somaliland boobay ee kulmiye oo musabixi uu hogaaminayo waxaan rabaa arinta inaan wax ka yiraahdo marka koowaad waxaan rabaa inaan u cadeeyo xadka Puntland la leedahay Somaliland waa xagee waxa ayaan darro ah in labadii gudoomiye ee golayaashooda aan aqoon xadka ay sheegayaan oo midna leeyahay 7 kilomitir baan Garowe u jirnaa midna uu leeyahay waxaan u jiraa 4 kilomitir iyo badh taas waxay muujinaysaa garasho darrada iyo duulaanka indhala'aanta ah iyo dhulka aan aqoon ay sheeganayaan inaanay lahayn cadeyn waxa ugu filan labadooda gudoomiye ee labadooda aqal ee xeer dejinta u qaabilsanay xadoodaha ay sheeganayaan ma yaqaanaan annaga daba xadkiina idin sheegana xadka Somaliland la leedahay Puntland waa xadka gobolka Sool la leeyahay degmada Burco waxa la yiraahdaa labida gaatama 10 kilomitir bay galbeed waxay ka xigtaa tuulada la yiraahdo Karin waa xadkii Ingiriisku u kala xadeeyay beesha dhulbahanta iyo beesha Isaaq dawladda Ingiriiska ay ka dhigtaan sharciyada waayo meel maamulka Somaliland beesha Sool Sanaag iyo Cayn degta ay heshiis kula gashay maamul kula qaybsatay axad iyo dawlad dhismo kula yeelatay ma ay jirto ummadda Soomaaliyeed way ogtahay madax dhaqameedada ayaa xilligan dawladdu jirin dhammaan maamulada dalka ka jira waa kuwa ka yimi hab dhaqameed qabaa'ilku shireen madax dhaqameedadooda u saxeexeen waxaad ummadda Soomaaliyeed iyo meel kasta ay ogtahay dhammaan dhaqanka goboladaas inay geed iyo goob la taagan yihiin Somaliland waxaan la galay iyo waxaan heshiis kula nahay iyo waxaan la gali doonaa midna ma jiraan waa maamulkaas beelaysan ee ka go'ay sheeganayo Soomaaliya inteeda ka go'ay baarlamaanka Puntland oo aan ka mid nahay marar badan bay ka hadleen waajib dastuuri weeye in dawladda Puntland ay difaacdo waana ku taageeranaa shacabka Puntland meel ay joogaanba waxaanu ugu baaqanaa hadii ay iyaga golayaashooda hadleen haday shacabka isweydiinayaan baarlamaanka Puntland baarlamaankii uu hadlay Somaliland uu hadlay maxay u aamusan yihiin maxaanu hadalka iyagu waxa weeyaan iyagu dhul iyo dad aan lahayn bay ka hadlayaan annagu waajib dastuuri aanu aragnaa marar badan waa ka hadalno dhinaca kale gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka Puntland xildhibaan Xuseen Yaajin Xaaji Diiriye oo isna halkaasi ka hadlaya bulshada gobolka ugu baaqay inay Somaliland iska xoreeyaan taageerana go'aanka dawladdu ay ku doonayso inay dib ugu soo celiso deegaanada gacanteeda ka maqan ee dastuuriga xildhibaanka oo ka jawaabaya hadalka soo yeeray gudoomiyaha baarlamaanka Somaliland Baasha Maxamed Faarax oo ku aadan xuduudda Somaliland ay tahay deegaanka Yuucad ee duleedka Garowe ayaa sheegay in Baasha uu macaansaday feerkii looga saaray gudaha baarlamaanka Somaliland isla markaana Puntland ay qarannimadeeda difaaci doonto waxaan maanta ka hadlayaa dagaaladan ka soo cusboonaaday Tukarraq iyo hareeraheeda horeyna u jiray mataqaana ilaa 2004 maamulka reer Hargeysa waqooyi galbeed dawladda Puntland ay wax fara badan ay samir iyo dulqaad muujisay inta ay soo socdeen markastana ay islahayd inaan dhiig Soomaaliyeed oo badan la isku daadin inta maamulkaasu Hargeysa ilaa iyo
2004 habeen isma taagin weerar ayuu ahaa ingiriisku hadduu siiyey halkan ilaa halkan annagana wuxuuna siiyey ilaa Hargeysa buuna siiyey marka waxa weeye bal wuxuu idinkeed siiyey wuxuu annagana siiyey aan sula nimaadno bal marka horaas hal ogaado wuxuu idin siiyey wuxuuna siiyey hadduu annaga ingiriisniki siiyey oo uu yidhi qoladaa idinkaa leh dee horta waaba la sogaanaya wax badan haddii aad soo socoteen dagaal badan soo qaateen guul aad tirahdeen waad gaadheen intaana samir iyo dulqaad iyo mataqaanaa odaynimo la sameynayay maanta waxaan u malaynayaa in lays arkayo waxaa la yidhaha kii dhaca waa badheer kuwa horgalka ah ee had iyo jeeraale hor socda iyagana ballan waxaan u qaadaynaa inaanu sida aanu kuwa kale u leyno inaanaan qof horgala aanaan bixinin ballan baanu qaadaynaa waxa weeye odaygan mataqaanaa feer macaansade muxuu ahaa ninka la yidhaahdo weeye baasho xaade waa maalin walba ka hadla inuu weerar soo geliyo ee hor socda isaga iyo kuwa lamidka ah waxa weeye maanta inoo tahay dowladda Puntland wax badan baa layna daandaansaday wax badan baana tiraahdeen maanta idinka caynkana wax badan baa hadalla adagna tiraahdeen maanta waad aragtaan waxa weeye shacabka reer Puntland ee gardarada lagu soo doontay ee geesiyaasha ah idinkuna waxaan leeyahay dhammaantiin naf iyo maal hala hadhina gala dagaalka dumarku muryooda ha iibiyeen ha kaceen hala dareero intaasaan leeyahay saasaanta colaadeed ee u dhaxaysa Puntland iyo Soomaaliland ayaa sii kordhaysay saacadihii ugu dambeeyay waxaana cabsi laga qabaa in labada dhinac ay isku farasaaraan deegaanka Tukarraq ee gobolka Sool oo dhawaan Soomaaliland ay qabsatay